وديبات الدنودي هالكلو تمايو آخر وحسيديبو وديبات الدنودي هالكلو تمايو آخر وحسيديبو وديب أودا وديب هدي رجوعنا وحوي مدر موجة وحكوت على عرقابه وحكت على حاجة بضة ما يربيود حيسا يعرقابه أيود حيسا تذكر الحسن دنيا دوايرتهاي هدي لحظة وقريه ولا تجو أرجو الحسن يهاي قالوا الحسن يهاي لو الحسن تهاي تذكر سيبوا دعبة سروية هاي runtiina anagu Soomaaliland qolada la yahay waxaan hortana Soomaaliland khaasa laakiin waxtar kama hayno run barka loo sheego meel iskuul ah ayaan waxa weeye naga soo gaadhay halka waa degmada oo tuulada rugay ee meeriyo u dhaxaysa gobolka Sanaag oo u dhaxaysa xeebta bay u dhaxaysa meesha halka xoolo waa jilcsan yihiin dadku waa jilcsan yahay dadku ma haysto waxay dabka saaraan biyo waa haystaan biyo waa yar yihiin biyo hoos bay u dhaceen laakiin waa buuro biyo waa joogan laakiin wax lagu kariyo horta dadku ma haysto wala tuban yahay xooluna waa dhimanayaan wax yar baa xoolii dadkii u sii haray marka abaar xalxaad la'aan arag baa ka dhacday oo socota maanta waxa jira wadanku abaara aad adag baa jira waqtigu adag yahay waxa weey xooliina waa dhimanayaan sida ay u soo sheegeen odayaasha hore iyo guurtudu dadkuna waa buka xanuuna ayaa jira aad iyo aad u culus marka waxaanu codsanaynaa dawladda in gargaar degdeg ah dinala soo gaadho waxa meesha ka jira abaara baan oo ilama iyo gugii kal hore roob baan arag xooluhuna waa dhimanayaan waxaanu codsanaynaa si degdeg ah dawladda iyo hay'adaha in la soo gaadho anoo ah Salaad Saalax Maxamed oo aqalkii buurta ah deegaanka kan ka soo jeeda xidhxidh iyo gaacid codsanaynaa in wax naloo qabto oo laga qabto qaybta biyaha haddii ninku beerto geed weyn oo halu lahaa biyo uma qaybsamaan geedgaabkii iyo geedweyntii waa inuu meesha ka baxa hadda liintan oo kale sanadka biyo weyday waa qalashay waa khatar bay ku jirtaa marka waxaan aad u codsanaynaa hay'adaha wax ka qabta beeraha bixiya siidka iyo qalabka biyo balaarinta sibirka iyo looma solarada biyaha soo saara in wasaaradda beeruhu noo soo dirto oo nala shaqeyso oo nagu xidhnaato waxaan dawladda qaranka hay'adaha wasiirka ku shaqada leh ee wadooyinka aan ka codsanaynaa in wadada loo hagaajiyo dib badan baa naga soo gaadhay wadada haddii ay tahay hooyada iyo dhallaanka oo inta wadada la sii sido ku dhiig baxda wadooyinka iyagoo sababaya oo aad u adag oo buuraley dhex mara beeraha oo aan si fudud sarcoodu u iibsamin oo ay keenayso wada la'aanta buuraha wixii ka soo rogan laaga haddii alla tabca la yiraahdo ilaa iyo wareegiisa dhinac walba ah waxaa ka dhacday abaar xun oo xoolo bukaan oo dhimanayaan dadku gaajoonayo neef ay iibsadaan aanay lahayn hadday islaamid iibsadaan wax ka iibsadaan aanay hayn dhibaatadaasaan haysata ilaa iyo degmada maydh annagu xabad kalluun aan ku noolayn xabaddii kalluun ahayd waxaa nagu ciidhiyay dadkii soo qaxay ee miyiga ka yimi iyagoo ay haysato busaarad xun oo haddii alba miyiga ka soo cararay witir iyo baanu qaadanaa shabag yar oo aanu la lugayno marka wax kale oo nala taro wax kale oo dawladda iyo cidna kale oo aanu aragnay ma jirto baahidaasaan haysata xun waxaanu baaq u diraynaa abaaraha ka taagan dalka gaar ahaan haddaanu nahay degmada maydh waxaana haystaa abaaro gaar noo ah oo abaarta dhacday xanuunaba noo dherga annaga oo xoolay ku dhacay oo haddii badankeed xooli la iibsan waayey oo haddii badankeed saylad aan loo hayn hermigii oo soo qaxay oo ay magaalooyinkii soo dulfuuleen kuwa markii horeba iska liitay iyana ay ku soo kordheen dawladda waxaan ugu baaqaynaa inay dadka si degdega loo soo gaadho marka dawladda codka waanu gaarsiinaynaa halka kan waxa ugu daran waxa weeyaan sida dadku sheegeen xoolaha dhimanaya wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan leenahay halka kan xoolaha la badbaadiyo waa qodobka labaad dadka kan waxaa loo keeni jiray xoga garow ah iyo raashin WFP ka iman jiray iyo hay'adaha ka iman jiray iyaga waxaan leenahay urgent call baan u diraynaa baaq degdega inay halka kan keenaan rugay waxyaabihii ay asaasiga ay keeni jireen raashinka ahaa cuntada ahaa dadku quudan jireen gaabka ay kaga bixi jireen way sababtoo ah halka kan
ma jiro mucaawimo dawladeed ama gacan dawladeed oo soo gaadha buurahaasaa ku gadaaman dawladdii waxay ha qabtiri kara la'dahay inihii ku hareeraysnaa iyo caasimadda wayba la tacaalaysaa oonay soo dhaafayn